barnaamijka la qaado qayb aad iga geliso. Magacaygu waa Cabdullaahi Aadan Kaneec, waxaan ku noolahay dalka Kenya, waxaan ka mid ahay dhalinyarada waddankan jooga. Waxbarashadeydii aasaasiga ahayd ilaa heer college waxaan ku qaatay waddankan. Xirfadeyda iyo aqoonteydu waxay ku saabsan tahay arrimaha IT-ga iyo ganacsiga. Labadaasaan weliba haddana aan kusii shaqaystaa oo muddo waqti dheer aan kusoo shaqaynayay. xirfadan waxaan ku shaqaynayay dabcan ilaa muddo ku dhow 10 sanadood haddaysan kaba badnaynba. waxaan kusoo biiray 2009kii bishii shanaad 18-keedii oo aan ka shaqo bilaabay dukaan ku yaala townka oo waqtigii ugu horeysay ahayd oo macnaha xirfadan kusoo biiray IT-ga iyo weliba ganacsiga iyo waxyiibinta. barnaamijka marka waqtigaasi waan ku cusbaa runtii waxyiibinta iyo IT-ga iyo qalabkan weliba wax kuga cusub annagoo dad waxaan nahay bulshada Soomaali ahaan dad aan IT-ga iyo aqoontan teknolojiyada wax badan aan ka garanaynin. waqtigaas weliba anagoo aad u yar oo aqoon badan aan u lahayn inkastoo tababar yar markaa u soo qaatay. markaad wixii baratid oo wax yar ka baratid iyo markaad wixii dhex gashin ay kala duwan yihiin. 2 bilood baan halka ka soo shaqaynayay. xirfadeyda waxaan kula soo wareegay xaafadda Isli waan ka shaqo bilaabay 2009kii July 1-deedii. waxaan la shaqaynayay company Soomaali ay leedahay oo waqti dheer la shaqaynay ilaa 7 sano bar ah. shaqadeyda ugu badneedna halkaas ayay kulay waqtigay ku qaatay anigoo waxbarashadeena wato shaqadeydii baa haddana waxbarashadeeda aan sii kororsanayay. aqoonteyda inta ugu muhiimsan waxaa weeye waa IT-ga iyo ganacsiga. waxaan ahay ganacsade adigu 7 sano kadib baan ka soo tegay shaqadii iyada ahayd. wax badan baan kaga soo faa'iiday aqoonna waan kusoo bartay kulley shaqooyinka qaabka loo shaqeeyo wax badan baan kasoo bartay. waxaan 2006 August baan dukaankan aan hadda dhex fadhino waan ku dhiiraday inaan furo. waqti aad u adag bay ahayd runtii. go'aan aad u adag oo runtii intii nolosheedii soo martayna way ahayd. ilaa waqtigaas ilaa haddana dukaankan ayaan ka shaqeeyaa. waan isku wadaa ganacsigii iyo farsamadii labadaba. dad badan waxay igu khaldaan Axmed oo inaan wariye ahay. laakiin waxaan dadku u sheegay inaan wariye ahayn. weliba ma baran xaqiiqatan balse dad badan waxay u arkaan inaan xirfadaasi aan xoogaa u yara jajabanahay. markaan meelaha qaar ka hadlayo iyo markaan barnaamijyada qaar dadka aan ka caawinayo oo kale iyo TV badan iyo idaacado badan oo marka qaar sooskii waxyaalaha qaar ila soo aan la raadiyaa wax badan la sameeyaa. xirfadeyda ugu weyn waa businesska iyo IT-ga. arintaa kale dadku way igu khaldaan. waxaan sameeyaa waqtiyada kamid ah aan sameyn jiray haddana ilaa hadda aan sameeyaa barnaamijka samafalada iyo wacyigelinta. waan wax meelo badan ka sameeyo goobaha la isugu yimaado oo kale. waa idan dambe casriga uu iska isbedelay uu qofka isagu uusan u baahnaynba inuu hooliyo meelo dadku isugu keenaba oo channeladan social media wax la isku marin karo. waxaan bilaabay inaan halkaa dadka qaar dhalinyarada khaasatan aan dhiirigelin barnaamijyo dhalinyarada aan ka sameeyo. marka xirfadeyda ganacsiga waxay dheer xirfadan kale ee wacyigelinta iyo samafalka oo kale. ururkaasi waxaa la oran jiray badbaada team. waxaan ku sameynay 3 nin aniga iyo nin Xuseen Fawzi la yiraahdo iyo nin Cabdiraxmaan Samadoon la yiraahdo. xaqiiqatan ujeedadii aan ka lahayn waxay ahayd inaan fariimaha wanaagsan maadaama social media aad waagas loogu cusbaa 2014kii bay ahayd. barnaamijka asaaskiisa wuxuu ahaa 2013 November December. marka adigu laakiin wuxuu hirgalay oo aan bilownay 2014kii. barnaamijka waa barnaamijyadii ugu waqtiyada ugu fiicnaa aan kulay samafalka xilligaas wacyigelinta aan kusoo biirnay bay ahayd. waxaan uga gol lahayn inaan dadku aanu gaarsiino waxyaalaha muhiimka ah oo aanu noqono dad channel oo la dhex maro oo isku dabarida dadka xogaha haya iyo waxyaalaha bulshada u baahan yihiin oo kale inaanu ka qaadno kadibna aan u baahino dadka bulshada oo waliba anaga ka mid nahay oo baahida ugu weyn anaga u arkin inaan qabno. barnaamij wacyigelin ah iyo dhinaca kale samafalka. marka barnaamij waxaan sameynay mar dhar ururin ah. waxaan dharka ururinay dhalinyarada asxaabta ee nagu hareeraysanaya saaxiibadeen iyo dadka kale naga agdhow. waxaan geynay xiriyaha Dadaab. marka halkaas lagu soo qaybiyay in saaxiibkeen Xuseen Fawzi halkaas u geeyay. marka barnaamijkaas waxa uga gol lahayn barnaamij wacyigelin ah inaan dadka wax ku tarno wixii aan awoodno oo kale. nasiib darro barnaamijkii ma sii soconin. taasina waxay sabab u tahay bulshadeena Soomaaliyeed waxyaalaha marka la sameeyo iyo joogtay la'aanteeda iyo inaan la sii wadi karin oo ay tahay daruufaha iyo danaha gaarka ee dadka ku xiran. marka barnaamijkaas barnaamij aad u qiimo badan buu ahaa. aad baan weliba runtii ilaa hadda ugu taamaya barnaamijkaas. qalbigeygana aad buu weli ugu weyn yahay. ilaa hadda waan sameeyaa oo ciidii oo kale hore
sidaas leeg baan dhar aniga aan lahaa iyo dhar kale oo asxaab aan ka ururiyay baa jirto aan ururiyay aan sidaas leeg aan diray un isla aan dhadhaab aan u diray waayo baahidu meesha ay taala baa muhiim ah in loo gudbiyo marka welina waan ku guda jiraa haddii Allah wada la ogolaado oo dee isu socodka waddanka la furana waxay qorshaysan haddii Allah wada la ogolaado ciidan soo socota intaan la gaarin inaan sidoo kale aan dhardiro xaqiiqatan IT-gu annaga intaan ka naqaano way kooban tahay aniga hadda kula hadlay dadka aan wax ka bartay markaad Soomaali ahaan fiirisid iyo baahida bulshadana oo qabto waa kaafi kala dheeri weey baahidana wuxuu qabtaa yacnaha baahi aad u weyn IT-gu waayo aqoonta inta aan ka haysano way kooban tahay aaladahan ee hadda casriga ah waliba social media oo kale markaad eegto sida baahida meesha taala sida ahayd inaan u isticmaalno sida ahayd inaan u barano iyo macnaha waxay fursadaheena ganacsi oo kale markaan soo qaataa dhan inaan ka faa'iideysan lahayn uguma faa'iideysano waxaan u isticmaalnaa waxyaalaha waqtiga inaan ku dilno oo kale waxyaalaha fuxshi oo aan u wanaagsan in bulshada oo kale inaan ku soo bandhigno oo kale way jiraan dad runtii si wanaagsan u isticmaala oo ka sameeyo suuq fiican nina la yaro waxa jiray sameeyay sami online oo kale oo suuq oo online ka ah marka waxaad dareemaysaa in bulshadeenu aqoontii ay ku leedahay IT-gu inuu aad u kooban yahay fursadii aan u helnay inaan internetkii helno aaladaha deviceski computeradii kale tabletyadii kale iyo qalabkii kale inaan helno hadaynaan uga faa'iideysan karno sidii macnaha wanaagsan taas waxay ku cadeynaysaa aqoonta aan u leenahay IT-ga iyo baahida aan u qabno inay yihiin wax aad u kala fog runtii aad iyo aad maadaama dee aan ka dhawaajiyay bulshada in IT-ga iyo technology-ga aysan aad u garanaynin caqabadaha ugu badan ee markasta aan la kulmo waxa weeye qof aad computer ka iibinaysaa computerkii qofkii waxaa laga yaabaa inuu hadda ugu horeyso oo kale ama intuu ka yaqaan ay kooban tahay wixii waa computer cilad baa ku iman karta cilad oo hardware baa iman karta cilad software baa iman karaysa dhibta ugu weyn ee ka timaadana waxa weeye ciladaha software-ka horta u badan 99% inuu computerka qofka ku timaado customer-ka markuu computerka ka iibsado aad u diyaariso aad wixii loo baahnaa ee muhiimadda ahayd necessaries aad ugu shubto qofkii maalin ama 2 casho 3 casho gudahood waxaad filanaysaa inuu qofkii ku yimaado waxa uu weyn ku complain gareynaya waxa weeye wuxuu isagu ama gacantiisa uu ku keenay ama wax yaani xaalad oo virus oo kale yimid oo kale marka caqabada joogtada ee ugu weyn ee maalin kasta aan la kulmaa waxay tahay in customer-kii uu ka caawinayo wax aad u sahlan laakiin uu nagu eedeynayo annagii mar walba inaan wax ka iibinay wax feega waxa dhacdo oo kale in hadda xiliyadan lockdown-ka lagu jiro oo kale tii ugu dambeysaan soo qaadanayaaba hooyaba waxay u iibisay wiil yar oo dhashay computer hooyada markaan u gadeeyay waxay dhaaray ku marisay inuu computer original yahay marka waxa dareemaysaa markuu macnaheedu waalidkii uu ku dhaarinayo ku leeyahay hooyo alla ma ilaahay ma kugu og computerka ma original ma yahay oo kale aqoonta ay yacnaha erka garsid waa hooyo sax weeye laakiin wiil waxaa la socdaa dhowr 20 jira taqriiban marka qiyaasana 3 ku qiyaasay oo kale markaan computerkii iibiyay baalin kadib hooyada way igu soo noqotay wiilkii halka bay macnaha dacwadii igu la timid tiri hooyo waxa original iga maad iibin waxa aad u xun baad iga iibisay wixii iga bedel caqabada ugu badan annagana haysto waxay markaan customer-ka wixii aan ka iibino waxaan raadnaa waxaan warranty bay leeyihiin warranty-ga markaan waan qeexnaa waxaan raadnaa warranty waa service ana haday wax ka halaaban aan ku sameynayna bedel ma aha haddii cilad qofka halkan uu computerka uu kala tagay markiiba annaga ogaanaba computer halkan kama baxo aan macnaha aan hagaagsaneyn marka waxaan ka dhaadhicin karaa hooyadii macnaha hooyo arintani waa arin yar oo macnaha sahlan oo la xalin karo oo ku xalinay adigoo taagan maya dhaar bay wax iska soo taagtay markii hore dhaar khaldan baa ii martay imankana waa computerka iga bedeshay marka caqabada joogtada waxa weeye marka aan bulshada wax ka iibino oo aan wali servers u sheegnay aan u sameeyno warranty-ga noocu yahay waxaan sameynaa oo sheegtid haddana wali qofkii macnaha kuma wada qanacayo mana ama isagoo hataa dadka qaar fahmeen intaynan hataa wax baratay bulshadana waxay markiiba ay isla soo istaagaysaa maya waa inaad waxaan iga bedeshid marka caqabada annaga waa noo joogto waa khibradeedii baan u leeyahay oo 10 sano iyo dheeraad baan barnaamijkan ku soo jiray waan fahansanahay inta badan waana ka taxadaraa waxyaalo badan dadka inaysan dhibaato ku keenin computerka markuu qofka qaato oo kale waxa jira waxyaalo yar updating computerka marka la daminayo kale update isu diraya ama marka la soo kale update buu isu diraya waqti buu qaadanaya waxa la qofkii by force inuu ku damiyo oo kale isagoo waliba computer ku sheego ku oranaya hadaminin computerka ilaa uu shaqadiisa dhameysto marka waan ka xirnaa update-ka oo kale si aan caqabadaas u imaanin sidaas la mid ah waxyaalaha qare malware-ka meel ka soo galay antivirus free aan dadka qaar iska sinaa ama costiga alaabta aan ka iibinayna ugu dara marka dhibta ugu weyn ee marka soo noqnoqto xawee
markaan agabkii dadkii ka gadnay weliba kombuyuutarada u badan markastoo ay igu soo noqonayaan maanta aan hadda ay la hadlaysid qadar yar ka hor qasan waan 2 bilood ka hor kombuyuutarkaybii way igu soo celiyeen wuxuu ka cabanayaan waxaa weeyaan waa wax oo isagoo xaggiisa ka yimid oo aan waxaan laakiin mar walba waxaan isku dayaa inaan qofkii ka caawiyo aan markaas serverskeena aan hagaajino aan kor u sii qaadno si ay dadkii laftooda aan qayb uga qaadan inaan ay wixii fahmaan baayde waqti dheer baa waxaan ku soo jiray oo wax la yaab leh waa i soo maray wixii ugu la yaabka badnaa ee soo maray wuxuu ahaa kombuyuutar qof igu keenay inaan u format gareeyo oo waxaan judge gareynay uu yahay qadar marka aan dadka qiimaha wax ku wada fahmayaan aan u sheego lacag $9 u dhigantay markaa lacag $9 hadda oo $9 hadda u dhigantay waqtigaas kombuyuutarkan saaf u sameeyay marka anaga waqtiga lacag fiican bay noo ahayd laakiin hadda marka loo qiimeeyo wax badan halkan hadda ma aha kombuyuutarkii weli la shaqeynaya baan u dhiibay waxaan ku yiri oo markaa training aan ku waday kombuyuutarkii uu isdamiyay markaan tixraax ku sameeyay waxaan ogaaday kombuyuutarkii motherboard ka gubtay marka wixii ugu cajiibsanaa ee soo maraa wuxuu yahay macnaha in kombuyuutarkii dhammaa waxa ka raadinaya inuu isagoo dhan gubto kadibna qaan ay meesha iga raacdo marka adigu dee customerka wixiisii buu rabaa waxaan ku khasbanaaday inaan arka aan lacagtii aan gudno laptopkii customerkii aan ku qanay inaan laptop kala siino oo sidaa uu ku qanco weliba kiisii mid ka fiican aan siina xaqiiqatan annagana meeshii yacnihii wixii annaga dhinaca iyaga ahaa iyo kambaniga weliba markaa u shaqeynayno oo qayb naga caawiyey inaan lacagtii marka sidaa aan ku bixinay marka xaqiiqatan dhib weyn been caqabadaha kale ee aan la kulannaa waxaa ka mid ah axmedow customerkii markaad kombuyuutarka iibsid maadaama aad tiro warranty buu leeyahay wixii ciladii waa laga hagaajinayaa waxaa dhacda qofkii markuu adigu waata dhalinyarada xilli dambe iska gaarto oo marka qaar iska soo jeedaan oo internetka iskaga dahaan qofkii inuu ilaa 2 ama 1 habeenimo saq dhexe uu ku soo waco oo ku yiraahdo kaale kombuyuutarka kaale hagaaji marka iyadina wax suuragal ma aha oo dee inaa xilligaas aad tiraahdo qofka markaad tiraahdo subaxii ii kaale oo dee walaal xilligan dukaankii ma furno xilligan ma iman karo wuxuu ku leeyahay soo adiga imaad dihin warranty baad macnaha baan ku siiyay markaa u baahatay wixii baan kaa hagaajinaya marka caqabadaha waxay ka mid yihiin runtii lala kulmo xilliyada dadka yacni lala macaamilayo waase arrin jirto oo runtii meel kasta ka taagan bulshadeena dhinacna waa aqoon darro baad moodaa inay ka keeni karto dhinacna waxaa moodaa inay ka keenayso xoogay adkaanta iyo runtii iyo dhiiranaanta aan leenahay oo kale inta badanna anagun baa sidaa isku ah laakiin qofka Soomaaliga markuu bulshada kale wax ka iibsado sidaa kuma aha xaqiiqada waxaad moodaa inay xoogaa ka yara xishoonayaan ama ka yara gabanayaan qofka hadii la yiraahdo wixii adaas ka helay nabaday uu iska qanacsan yahay laakiin anaga markuu noo yimaado xoogaa anagu waan isku taagnayn isku buuqnaa marka waa caqabad weyn oo runtii aad dareemi karayso caqabadaha kale aan la kulmo waxaa ka mid ah in nin uu anaha saasoo kale charger aan ka iibiyo isagoo gacantiisa ku soo gubtay waxyaalaha noocaas yar iyaga kale warranty ma laha inuu askari isoo ka xisto kale roon ku xiraya marka waa caqabad runtii aan dhamaad lahayn inta businesska ku jirtina inta iyo kuwa ka badan oo kalena waa runtii waad arkaysaa fariintayda guud aan bulshada u soo jeedinayo waxa weeye runtii baahi weyn baa loo qabaa arrimaha IT-ga sidaas la eg macnaha waxaa baahi weyn loo qabaa macnaha fahamkeeda iyo barashadeeda waxaa baahi weyn loo qabaa macnaha adeegsigeeda iyo qaabka anaga u isticmaalno inaysan ahayn marka fariintaan dadka u soo jeedin lahaa waxa weeye xaaladahan iyo qalabkan aan jeebabka ku sidana ama guryaha noo yaalo dhibaatooyin badanna way leeyihiin faa'iidooyin badanna way leeyihiin marka isu barbar dhigtana waxaad dareemaysaa inay isla eg yihiin marka waxaan odhan lahaa bulshadayda Soomaaliyeed in agabkan iyo aaladahan internetka iyo deviceskan ay bartaan inay talabaad macnaha ay sida u isticmaali lahaayeen baan ka hadlayaa khasama qofkii inuu IT-ga uu si guud u barto oo xirfadiisa gaar ahaaneed uu ka dhigo marka waxaan oran lahaa yacni aaladani iyo waxaan jeebka noogu jira inaan u isticmaalno si hufan inaan bulshadeena ugu soo jeedin karno macnaha fariimo wanaagsan inaan innagana wax ka kororsan karno oo aan wax ka yacni ka baran kareyno macnaha halka aaladda dhexdeeda oo internetkiiba macnaha kugu xiran 24 saac inta soo jeedid oo dhan marka waqtiga loo eego 3 meelood 2 meelood bay dadku soo jeedaan inta badan waliba dhalinyarada marka waxaan odhan lahaa laga wada faa'iideysto yacni waqtiga faraha badan leeyahay halka la gelinayo xumaan badan baa meeshan ku jirto bulshadana hadda waxaad moodaa in aad u soo badanayso in yacni wax badan oo aan dhaqan ahaan ay noogu wanaagsaneen bulshadeena yacni diin ahaan aan noo wanaagsaneen baad moodaa inay ka dhex socdaan markaad isku darto social media oo dhan iyo aaladahan isticmaalin
waxaan usoo jeedin lahaa in dhalinyarada barnaamijyadaas ay sameeyeen inay dadku usoo gudbiyaan wax ay wax ka bartaan oo waxtar u leh waxtar dadka wax u leh ina waxyaalaha aan xunxun ay uga fogaadaan ilaahay dartiis iminka waxaa soo baxday baan kugu sii daray Axmedow socialkii hadda lacag baa laga sameeyaa sida YouTube-ka oo kale dhalinyaro badan baa hadda anigu igu taxan oo qalabkaas aan ka iibiyaa oo lightkii microphone-kii iyo waxyaalihii softwareska wax ku edit gareynayeen iyo computeradii laftoodii dhammaan baan ka wada iibiyaa marka meeshaas shaqa ka furantay dabcan marka shaqada lafteeda macnaha qofkii inuu u maro baab wanaagsan iyo yani wada aad u fiican bulshadiina waxtar u leh oo ku wacyigelin karayo oo xumaanta uga reebi karayo isagana uu wanaag iyo khayr ilaahay agtiisa uu kaga heli karayo marka fariinteedan soo gudbin doona inta